بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. وبعد درس كمان لوقون دي وحكو سابسية أصحاب الأخدود قصوينكي أمضي هوريكا دعي يا مسلمين تاها. علماء التاريخ قار كمدي waxay yiraahdaan waxay dhacday ahdigii masiixiyiinta ama dad ahlu tawxiid aha oo nabi ciise dadkii rumaysanaa ahaa bay ku dhacday bay yiraahdaan. waxay sheegaan inay najraan meeshan loo yaqaan ka dhacday. waxay sheegaan علماء الآثار in hadda meelahoodii la qoday qaybo kamid ah. waxay sheegaan in godadkii iyo gubitaanadii iyo wixii hadda culamaa ilaahaar qaybo ka mid ay qodeen. laakiin markaad soo duuduubto qur'aanku iyo sunnada nebigu calayhi salaatu wasalaam qasaska markay soo arooriyaan ma soo arooriyaan inta badan iyagoo bitafsiila qofkii qisada qabsatay iyo abdaasha magacyadoodii iyo meeshii ay ka dhacday iyo magaalada magaceedii iyo taariikhtu wakhtiga ay ahayd iyo tasalsulka ay lahayd. quraanka xadiidku inta badan qisaska waxay u soo bandhigaan qaab ah. ilaahay wuxuu leeyahay laqad kaana fii qasasihim cibratun liulil albaab. qisooyinka ambiyada iyo dadkaas alla uu ka warramayo qisadooda waxaa ku sugan baa ilaahay yidhi cibra ayaa waxay ugu sugan tahay dadka caqliga leh. qur'aanka markaa qisas tiro badan baa ku soo arooray. qisaskaasi tirada badan leh oo gaal iyo muslimba leh. gaala ilaahay ka warramay fircoon iyo namruud iyo maxaa la yidhaahdaa haamaan iyo qaaruun iyo kuwa kani waxay ahaayeen dad khayr beelayaala. nebiyaa alla ka warramay, kuwa nebiya laayey baa laga warramay, ciidamo muslimiinoo guulaystaa laga warramay, kuwa laga xoog badiyaa laga warramay. qur-aanka ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu inoo soo bandhigayaa safxa min taariikhi اlbashariya. aadam laga soo bilaabo calayhi salaam ilaa maanta taariikhda bini aadamka qaybo ka mid ah. laakiin waxaa la inoogu soo bandhigayaa qaab ah si aynu uga faa'iidaysanno. qisadan maamulka mu'tamarku ay ugu talagaleen muxaadaradan inay yeelato waa qiso la yidhaahdo asxaabi اlkhduud, qoladii godadka. qisadatan qur'aanku si kooban buu uga warramaya. suurat اlburuuj wالsamaaءi daati اlburuuj wاlyowmi اlmawcuud washaahidi wamashhuud qutila asxaabu اlkhduud annaari daati اlwaquud id hm calayha qucuud wahm calى ma yafcaluuna bاlmuؤminiina shuhuud wma naqamuu minhm ila an yu'minuu biاllahi اlcaziizi اlxamiid الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. سورة البروج وقصة الله كورمي سبحانه وتعالى. محدثين وحي ساء روريان حديث صهيب الرومي صحابي اللي ورنشري وساء روريي حديث كاسي حكوية صحيح مسلم وحكولوكو يا الإمام الترمذي في سننه كتاب التفسير وحكولوكو يا الإمام أحمد في مسنده وحديث صحيح يسونه. والنبي عليه الصلاة والسلام قصة نبقرة وكجور رميه مفسرين توحان إليه نكاسي وحويان هي قصة طني وقصة يقصى أرورتي أصحاب الأخدود. قصة طني دودو بهان waxaa ilaahay kaga warramaya subxaanahu wa tacaala koox mu'miniina oo ilaahay rumaysay iyo boqor gaalah oo isagu ilaahay diiday ama dadkaba rabbi u sheeganayay wixii dhex maray oo ah inuu godod intuu qoday dab ku shiday dabeetana iyagoo nool uu ku guray. qur-aanku qisaska uu ka warramay mu'miniinta iyo gaalada dhex maray waxay yidhaahdaan mufasiriinta rag ka midii saddex qayboodba way u soo arooraan.
waxay soo arooreen iyada oo kooxdii mu'miniinta ahayd ilaahay badbaadiyey kooxdii gaaleedna ciqaab lagu dabargooyey wax dambena aan laga sii sheegin kooxdaa mu'miniinta markii la badbaadiyey kadib wax damboo ku dhacay aan laga warramin qisatu saalix qisatu huud qisaskaasoo dhan waxaa soo aroora bay yidhahdeen qur'aanka iyadoo gaaliya muslimiinta isqabteen ilaahay gaaladii tirtiray muslimiintiina dhulka la makansiiyey oo xoog iyo dowlad weyn oo jirta ay noqdeen sidii fircawn iyo nebi muuse wixii dhex maray fircawn waa la halaagay reer banu israa'iille dowlad mumakan ah oo ballaadhan ayaa ilaahay qur-aanka kaga warramaya fircoon dabadii jirtay muddo badan oo boqorro yeelatay nebiya ah nebi daawuud nebi sulaymaan ambiye kale oo tiro badan leh reer banu israa'iil bale ilaahay leeyay wakhtigooda iyaan dunidaba ka fadilay wuxuu kaloo qur-aanku ka warramayaa masaladaa cagsigeed oo ah gaaliya muslimiin inta murankaasi dhex maray muslimka inta gam laga siiyey wax ciqaaboo dunawiyana aanu qur-aanku ka warramin waa qisadaynu maanta dul taaganay qisadaynu dul taaganay qur-aanku wuxuu ka warramayaa asxaabi اlkhduud in la gubay laakiin wax ku dhacay qoladii gubtay qur-aanku ma sheegin lama odhan iyagana dhulkaa lala gooyey ama balaayo kalea ku habsatay ama wax kale ku habsatay wuxuun baa la sheegay in qoladaasi la gubay waxaa kaloo la sheegay aakhire isna inuu ilaahay duul gubi doono ina aladiina fatanuu اlmu'miniina wاlmu'minaati uma lam yatuubuu falahum cadaabu jahannama walahum cadaabu اlxariiq ilaahay isna aakhire inuu dad gubi doono ayuu ilaahay ka warramay laakiin lagama warramin iyagii wax ku dhacay qisadatan baynu markaa isdul taagaynaa qisadatan inta badan dadku qisaska waa garanaya ama qur-aanka waa la akhriyey laakiin waxaan isku dayi doonaa intaan guud maro mawaadicda ama meelaha bal culammadu waxay ka tilmaamaane cibarkaa inaan wax ka mida tilmaamo ilaahay suuradda qur-aanka ee wasamaa'i daati اlburuuj walyowmi اlmawcuud washaahidin wamashhuud intuu dhaartay sabadan buruujta le baan ku dhaartay burjuga asalkiisu waa qusuurta ama waa xusuunta waa dhufaysyadan la galay iyo qalcadaha iyo meelahan waaweyn ee dadku isku ilaaliyaan waxaa kaloo la ydhahaa manaajisa sare ama qusuurta abraaj waa طabaqaadka qusuurta ah waxaa kaloo culammadu ay ku tilmaameen inay yihiin meelaha kan socodada xidigaha sida dayaxa ama cadceedda meelahay degaan manaasishana buruuj waa la ydhaahdaa ta la ydhaha 12 minzil buu degaa ama 12 burji dayaxna la ydhaha 28 burji buu degaa qaabkaa looga warramo ilaahay wuxuu leeyahay cirka kan buruujta iyo manaasisha u saaxiibka ah baan ku dhaartay wasamaa'i daati اlburuuj walyowmi اlmawcuud maalinta labayaboohay baan ku dhaartay iyo washaahidin mid xaadiray iyo wamashhuudin ku la xaadiray ama washaahidin mid markhaatiye wamashhuudin ku loo markhaatiyey ama lagu markhaatiyey ilahay wuxuu tilmaamaya subxaana wa tacaala 3 shay oo ku dhaaranayo midi waa wasamaa'i daati اlburuuj midna yowmi اlmawcuud axaadiista nebigu waxay ku tilmaamaysaa yowm اlmawcuudku inuu maalinta qiyaamayi waxaa kaloo soo arooray xadiidku inuu sheegayo shaahidku inuu maalinta jimcayi waxaa kaloo soo arooray xadiid sheegaya mashhuudku inuu maalinta carafayi haddaad doonto 3 maalmood ka dhig haddaad doontana shaahidkiiyo wa mashhuudku waa wax kasta oo makhluuqa bay noqon karaan ilaahay markuu dhaartay wuxuu ku dhaaranayaa qutila asxaabu اlkhduud ay laqad qutil asxaabu اlkhduud waa la laayoo la nacdalay godadka kuwii u saaxiibka ahaa godkii baa laga bedelo annaari daati اlwaquud baa la yidhi kuwii u saaxiibkaa naarta huritaanka ah leh ama xaabada wadata annaari daati اlwaquud sifo kale waa la nimankan siiyo waa maxay goormaa la nacdalay id hum calayha qucuud boqoradan iyo qoladan gaaleed sifaadkay lahaayeen waxaa ka mida may laynoo qura muslimka ee layntooday ku taladudeen layntooda ayay macaansadeen kaanamaa riwaayad la daawanayo bini aadamku waxyaabaan malaahide uu daawado dadkii inta godod loo qoday
ayaa dab lagu gurayaa dumar iyo caruur iyo cid walba lagu gurayaa madaxduna ay daawanaysaa waxaad dareemaysaa bini aadamku markuu lumo xad inuu gaadho xayawaanka muftariska uu ka daraya xayawaanku wuxuu cunayuu qabsadaa laakiin bini aadam intaad gubto inaad gubistiisa daawato iyo siduu u huruunshoonaya iyo baruurta ka shiilmaysa iyo si uu jecjecleeyahay waa manzilo cajiiba ilaahay qoladan wuxuu ku sifaynayaa maantana waa la mid bini aadamkaasaa la tumayaa baman balaayo naabaallo dabeetana tv-yadaa laga daawadayo waa la isku daawanaya bini aadam la gubayo mararka qaarkoodna waxaa la yidhaahdaa markay dumarka iyo carruurta iyo waxaa ku dhacaan iyagaa taagnaa meel qaldan bay idhahdaan gantaalka qolaa loogu talagalaye iyagaaba taagnaa meesha qaldan oo iyagaaba marxuum qaldaan weeyaan isagaa demiga lahaa ayan kaanat ilmasala ilaahay qur-aanka wuxuu ku sifeeyey dad mu'miniinoo la gubayo iyaguna ay daawanayaan id hum calayha qucuud wahum calaa maa yafcaluuna shuhuud ba ilahi leeyahy subxaana ilahay wuxuu tilmaamaya wamaa naqamuu minhum ila an yu'minuu biاllahi alcaziizi alxamiid dadka kan jurmiga iyo dembigay galeen waa maxay wax kaloo dembiyo ay sameeyeen ma jiraan baa ilaahay yidhi inay rumeeyeen mooyaane rabbiga casiiska ah wamaa naqamuu minhum ila an yu'minuu biاllahi alcaziiz alxamiid ilaaha lama hadiyo ee xoogga badan leh inay rumeeyeen baa dembi looga dhigay ilaahayna waxa ay samaynayaan maxay waa shaahid ilahay taas ku koobsaday waxa ay samaynayaan inuu isna markhaati ka yahy wallahu calaa maa yafcaluun inuu alla shahiid ka yahay isna arkayo ayuu ku koobsaday qisada tan haddaan iyana guud maro xadiidka nebiga ka soo aroray calayhi الsalaatu wasalaam maalan riwaayada imaamu muslim waxay sheegaysaa nebigu wuxuu leeyay kaana malikun fii man kaana qablakum nebi baa jiray boqor baa jiray dadkii idinka horreeye ka mid ah boqorku wuxuu lahaa buu nebigu yidhi nin saaxira boqorrada dunidu inta badan kama maarmaan cid ay ku tiirsadaan cidda ay ku tiirsadaan midi waa acwaantiisa iyo askartiisa iyo xooggiisa iyo waxaa haddana baqaa ku jirta uuna ah bini aadamka kale waa kugu maqan yahay markaa cid haybka uga warranto iyo sida wax noqon doonaan buu jecel yahay hadday dowladdu dowlad mu'minada tahay ilaahay bay rumaysaa subxaana wa tacaala ilaahay bay haybka ku aamintaa laakiin dadku inta badan kama maarmaan sixiroolayaasha iyo kuwa faaliyayaasha iyo kuwa haybka ka warramaya kuwa waxaa laga yaabaa dadku inay is yidhahdaan imika dowladahan cilmaanigii iyagu waa ka horumareen waa been kuwa maanta jiraana sidii bay weli u isticmaalaan dunida maanta joogtaana weli sidii baa loo isticmaalaa falalowyada iyo saaxirada iyo waxaas ilahay nebigu wuxuu leeyahy calayhi الsalaatu wasalaam ninkii saaxirka ahaabaa markuu gaboobay ee boqorka sixirka u samayn jiray ayaa wuxuu boqorkii ku yidhi war waan gaboobay ee waxaad ii soo dirtaa wiil yar oo caqli badan oo aan baro cilmiga sixirka ii soo saar wiil baa loo soo diray markaa yar oo la yidhi wiilkaa sixirka bar wiilku halkii madrasadii sixirkee uu ku socday ee ninkaa sixirka caalimka ku ah markuu u tegayo sii socdo dariiquu sii mari jiray wuxuu ku arkay sawmaca nin raahibi leeyay nin raahibo oo wadaadoo meel deggan ayuu arkay dabeetana wadaadkiibuu iskala yaro fadhiistay wadaadkaas muwaxidka ee diintii nebi ciise ka tegay haysta ayaa wax u sharxa way cajab gelisay wixii wadaadkani u sharxayay hadhowna saaxirku uu tagaa saaxirkuna wixiibuu usoo sharxa wuu ka soo noqdaa gurigooda markuu usii socdana haddana wuxuu soo maraa wadaadkiiyo wadaadkaa in kaloo xaqa u sheega maalmihii dambe ayuu saaxirkii maagoo yidhi waad ka soo habsaantaa deriska oo la yarkii la maagay dabeetana yarkiibaa wuxuu u sheegay wadaadkii wuxu dhigayay mushkiladda haysata marka horena saaxirka aan ka yara habsaamana wuu imaagaa marka dambe aan gurigii ka yara habsaamana waa la imaagaa wadaadkii wuxuu ku yidhi war markaad saaxirka u tegaysana waxaad tidhaahdaa xaafaddii baan ku habsaamo reerkii baa i habsaamiyey marka aad xagga reerka ku socotana waxaad tidhaahdaa saaxirkii baan ku yara habsaamay oo cudurdaarkaa sheega buu yidhi wakti dambe
ayaa wiilkii magaaladii yareed ay deganaayeen unbaa waxaa ku soo baxay bahal weyn oo dadkii cabsi geliyey. riwaayaadka qaarkood baa waxay idhaahdaan libaax buu ahaa, ama libaax ha noqdo ama abeese ha noqdo ama mas ha noqdo ama wuxuu doonaya ha noqdo, bahal baa soo baxay magaaladii cabsi geliyey. wiilkii wuxuu yidhi maanta ayaan kala ogaanayaa arrinka saaxirka iyo arrinka raahibka ka xaqa ah. waa inan yar oo laba iskuul wada dhigta, iskuulna nin wadaadabaa haysta oo diintii nebi ciise haysta, iskuulna nin gaaleed baa haysta oo saaxira oo farsamada sixirka ku dhiga. laba madrasadood baa labadaba wax ku akhriya. dabeetana wuxuu yidhi maantaan tijaabinayaa labadaa inaan kala saaro. dhagaxintuu qaatay buu wuxuu yidhi ilaahayow haddii arrinka wadaadku agtaada lagaga jacayl badan yahay ka saaxirka, ilaa uu maanta bahalkaasi uu ku dhintaa dhagaxaygaasi. dabeetana dhagaxiisiibuu ku rideeyey. ilaahay subxaanahu wa tacaala bahalkiibuu ku dilay. wiilkii yaraa ducadiisii baa la aqbalayoo bahalkii waa dhintay. dadkiina meeshii bay mareen. wadaadkiibuu u yimi oo warkiibuu u sheegay. wadaadkii wuxuu ku yidhi yaa bunay anta alyawma afdalu mini, maanta adaa iga fadli badan. macallinku waxa fiican ardaygiisa inuu dhiiri geliyo. macallinku waxa fiican inaanu ardaygiisa jeclaanin nuskho isaga ka mida inuu noqdo, koobi yaroo adiga ku qallido oo adiguun intaada ummadimo horu marto isku dayataa. waxay horu martaa markaad ardaygaaga u tareengarayso inuu adiga wax kugu soo kordhin karo, markaasuu ummaddu hore u socotaa. intii adigu aad ummadda ku haysay ardaygaagu waa inuu wax dheeraada ku soo korin karaa. laakiin hadduu ardaygaagu noqdo midaad jeceshay inuu adiga kaa gaabnaado uun uu adig ku hoos jooga ama wax walba adiga ku weydiiyo ama intaasi uu noqdo, ummadda horumar gaadhi mayso. wadaadka kani wuxuu qirayaa ardaygiisii in horumar ka muuqdo. dabeetana wuxuu yidhi maanta adiga ayaa iga fadli badan. waanaan arkaa buu yidhi arrinkaagu inuu meel gaadhay, laakiin waxaad ogsoonaataa dadka ahlu iimaanka waa la imtixaamaa. niya kollayba imtixaan baa ku soo mari doonee, bal haddii lagu ibtileeyo war bal hay sheegin. haddii imtixaanku ku soo gaadho oo dhibaata kugu dhacdo ha iga warramin buu ku yidhi. inankii iimaankiisii waa koray. dabeetana karaamaad badan oo kalea ka muuqday. kuwo akmahoo indhala-aan ku dhashay buu ilaahay u baryaa indhaha u baxa. kuwo baras qaba buu ilaahay u baryaa diirkoodiibaa u soo noqda. xanuunno badan baa ilaahay ku daaweeyey. nin boqorka nimankii la fadhiisan jiray ah oo indhala ayaa inankan warkiisii waa caanbaxay. ayaa wuxuu maqlay wiil yaroo cidduu u duceeyaaba ay ka kacayso. dabeetana intuu hadiyad badan soo qaaday ayuu u yimi wiilkiiyo wuxuu yidhi waxaanoo xoolaan iyo wadaan kuu soo ururiyey, qaado. dee anigana caafimaad isii. waxaanoo xoolaana qaado, anna caafimaad baan kaa doonaya. wiilkii wuxuu ku yidhi waryaahe haddaad ilaahay rumayso ilaahay baan kuu baryaya. wiilkani waa daaci. wuxuu ka bilaabay ninka iyo isaga xidhiirkii ka dhaxeeyey mabda'ii uu ku yeedhayay inuu u bandhigo. waar haddaad adigu ilaahay rumaysa buu yidhi, aniguna ilaahay baan kuu baryaya subxaana wa tacaala. ninkii ilaahay buu rumeeyey, wiilkiina ilaahay buu u baryey. dabeetana indhihii baa u baxay. wuxuu ku noqday ninkani dee xaashiyadii boqorka buu ahaa, raggii ka agdhadhawaaye. gurigii boqortooyadu ku noqdo boqorkiiba ag fadhiista. boqorkii baa wuxuu weydiiyey man radda calayka basarak, war yaa indhaha kuu soo celiyey. boqorkani waa nimanka rabbiyada sheegtay. wuxuu rajaynaya de inuu yidhaahdo talabixintii boqorka iyo aftahanimadiisi iyo wanaaggiisi iyo wuxuu qabtay ayaa indhuhu ku baxeen inuu yidhahdaabuu sugaya. boqorradu iyo dadka madaxda ay waxay jecel yihiin haddii la afuufo la buunbuuniyo wax walba in iyaga loo nisbeeyo la yidhaahdo aragtidaadii fiicnayd iyo ildheergaradnimadaadiibaa wax waliba ku hagaageen. ninkii laakiin iminka iimaan buu leeyahy wuxuu yidhi rabbigay baa indhahayga ii bixiyey. oo ma rabbi aan aniga ahayn baad leedahay buu yidhi. ninkan halkaasuu isla jooga, mayd aan aniga ahayn oo kuu rabbiya baad leedahay. dabeetana wuxuu yidhi rabbi wa rabbuka allah, waar aniga iyo adigaba allah inoo wada rabbiya. kan waa la fitmeeyey buu yidhi hala toorjar galay hala cadaabo. waa la cadaaba. markii toorjarkii cabbaar uu ku socday ayuu boqorku wuxuu rabaa fitnadan iyo mushkiladani meesha ka soo baxday inuu ogaado.
ayuu wiilkii sheegay uu yidhi wiilkaasaa arrimahani baray wiilkii baa la soo qabtay wiilkiina waa la cadaabay wiilkii markii isna la cadaabay ayuu raahibkii sheegay haddaa la helay aslulmas'ala marka waxaan ciddii ka dambaysay hadda isaga jooga raahibkii waxaa la yidhi diinta ka noqo wuu diiday waxaa la yidhi isagoo nool labaha loo kala gooyay hala minshaareeyo minshaarta waa baashaan looxaanta iyo birta iyo lagu jaro minshaar waxba waa la yidhaha af carabiga labaha loo kala gooyaa la yidhi halkaasaa laga saaray bahashoo labaa loo qalay sidii buu diintiisa ugu dheganaa ilaa uu laba u kala dhacay ninkii baa la soo qabtay ka noqo diinta waa diiday isna halkii baa laga saaray labaa loo kala gooyey wiilkii baa yimi dowrkiisii wiilka dee isaga rajaa laga leeya oo cilmigii dee la rabay in boqortooyada lagu ilaaliyaa buu hayaa ila sixirkii oo dhan isagaa wakhtigii qaatay oo sixirkeen isaga in hore loo dilo markaa lama rabe waxa la rabaa bal horta in la cabsiiyo ilaa xad bal inuu noqon karo hortiisa labadii kale laakiin lagu mishaare wiilkii waxaa la yidhi diinta ka noqon maayo buu yidhi si loo hadiday waxaa la yidhi kaxeeya buur heblaayo geeya fikta u sarraysa halka sare taaga dee markuu haadaamaha arkiya waxa uu baqi doonaaye waxaad tidhahdaan halkaasaanu kaa tuuraynaa haddii aanad ka noqonin waa la kaxeeyey buurtii baa la saaray halkaa lagaa tuurayaabaa la yidhi ilaahay buu baryey ilaahay wuxuu baryey ilaahayow adigu wixii aad doonayso sharkooda kuwan igaga kaafi allahuma kfaniihim bima shi't ilaahu adigu sidaad doonayso iga kaafi kuwa kan buurtii baa gelgelatay dabeetana askartii baa daadatay isagiina ilaahay waa ku reebay meesha ma tegin wiilkiiyo wuu iska soo noqdo boqortooyadii iyo meeshii buu yimi magaaladiisiibuu ku soo noqday waar maxaa dhacay baa la yidhio wuxuu yidhi ilaahay baa kuwii sharkooda iga kaafiyey koox kalea loo dhibo waxaa la yidhi buurahan iyo dhulkaba ka daayo badda qabadsiiya doontaa yar ha la saaro badda ha la geeyo badda markaad bartankeeda marinaysaa ma ka noqonaysaa dhe ama ka noqon mayse hadduu ka noqon waayo badda ku tuura baddii baa la geeyey kadibna ilaahay buu baryo wuxuu yidhi ilaahay ow kuwan sharkooda adigu iga kaafi igaga filow doontii yarayd iyo baddii unbaa isku kacay unoo askartii baa ilaahay ka daadiyey isagoo doontiisii yarayd watuu soo noqday haddana meeshiibuu ku soo noqday waar maxaa dhacay wuxuu yidhi ilaahay baa kuwiina sharkooda kaafiyey boqorkii oo wareersan buu wuxuu ku yidhi anigu aan kuu sheego haddaba si aad aniga ii dili karto hal mida yeel buu yidhi dadka oo dhan soo ururi meel isugu keen markaad dadka oo dhan meel isugu keento aniga markaa geed igu xidha markaad isalbiso kanaanadaydu kanaanadu waa jucbada waa bahashan yar ee leebabka lagu gurto aniga bahashan aan leebabka ku sito qandigan yarow leebabka ku sito leeb ka mida kala soo bax leebabkaa ka mida kala soo bax dabeetana aniga igu soo gan adigoo odhanaya bismi illaahi rabbi algulaam magaca ilaahay baan gargaarsaday rabbiga wiilka yar haddaba ninkii rabbinimada sheeganayay baa la leeyahy waxaad tidhaahdaa magaca ilaahay baan gargaarsadayey rabbiga wiilka yar sidaa dhe markaasun baan dhimanayaa buu yidhi ninkani haatan anaa rabbiyo uma taagna iminka waa boqortooyadii baa khatar ku jirta kibirkii la soo dhaafiyo dee ninkuu is yidhi badda ka tuuriyo buurta ka ridi dhiman waa iminka ilaahu mulkiga wuxuun ka badbaadi buu taagan yahi waa iska ogolaya markaa inuu yidhaahdo rabbulghulaam iyo inta tan wiilkiibaa dadkiibaa la ballamiyey meeshii baa la isugu wada keenay wiilkii baa lagu xidhay bahashii dabeetana wuxuu yidhi bismi illaahi rabbi algulaam waa lagu ganay halkaa dhafoorkay kaga dhacday dhiig baa ka soo daay dabeetana waa dhintay wiilkii markii ay naftu ka baxday ayaa dadkii dhawaaqeen bulshadii daawanaysay warka dee waa lala socday awal wiilkani inuu libaax ama bahalkii dhagax ku tuuray oo ku dhintay waa dadkii magaaladii waa wada ogeyd boqorkaba ninkii uu shaqayn jiray la joogay inuu ilaahay u baryey oo indhuhu u baxeen dadku waa wada ogaa in karaamaad tiro badan le ka muuqdeen
oo dadkii caafimaad ay heleen wuxuu ilaahay u baryey waa la ogaa boqorku intuu isku dayey si walba inuu u dilo inuu u dili kari waayey waa la ogaa inuu ku yidhi marka dambe haddaad rabto inaan dhinto oo qura sidan oo quran ku dhiman kara taasi waxay keentay dadka xaqiiqatuliimaan inay fahmaan markaa boqorkii iyo dowladdii oo dham intay isu tagtay soo wiilkan may dili kari waayeen dabeetana dariiqadii uu yidhi ilaahay haddaad rumaysaan unbaad idili kartaa bes waxaanu rumaynay bay dadka yidhaahdeen annaguna maanta laga bilaabo rabbulghulaam baanu rumaynay wiilka rabbigii ayaanu anana rumaynay nimankii warka sheegi jiraa boqorkii u yimi waxaa la yidhi boqorow wixii aad ka baqaysay waa dhaceen qad wallaahi nazala bika xadarku ayaa la yidhi wixii aad ka cabsanaysay waa kugu dhaceen dadkiina ilaahay bay rumeeyeen tala keen wuxuu yidhi magaalada oo dhan sakadaheeda godad ka qoda god walba dab ku shida markuu dabku karo dadka oo dhan soo xaadiriyo keena dabeetana waxaad tidhahdaan qof kasta ama koox kasta ama gruub kasta weydiiya ma ka noqonaysaan diinta may hadday yidhahdaan dabka ku rida dadkii baa la soo tubay sidii baa la yeelay dadkii wax ma yidhaahdaaba le horaaba loogu daadanayaaba faqtaxamuuh ayuu xadiisku tilmaamaya inay la iskuga cidhiidhiyey xagga dabka in iimaan laga noqdo daaye dumar caruur odayaal cid walba waa lagu guray hooyo ka mida hooyooyinkaa ilmo yaroo radiic oo ay sidatay u naxdo dabeetana waa isa soo yaro adkaysay ilaahay baa wuxuu ka hadliyey ilmihii yaraa ee dhabteeda ku jiray kii yaraa ee dharabta saaraa ayaaba alla ka hadliye wuxuu uhi yaa ummaah isbiri fa innaka cala alxaq hooyoy sabir xaqaad ku taagan tahay islaantii iyo ilmaheediina waa galeen boqorka kani sidaas buu dadkii u laayey riwaayadda aan akhriyey af soomaaliga ku akhriyey waa صaxiixu muslim riwaayadda ku taala riwaayaadka kale imaamu termedi iyo qolada kale warinayaana kama foga haddii aan in yar markaa qisada isdul taago xadiidkaa صaxiixu muslimka ayaa aayaadka qur-aana ku koobsado qisada tan waxaynu ka qaadanaynaa cibar tiro badan kow waxaynu ka qaadanaynaa in ilaahay dunida maamulo daartan aynu joognaana inay daarulimtixaan tahay meesha kama dambaysta ilaahay ku ballan qaaday inuu dadka ku abaal mariyaana inay aakhiro tahay ina aladiina aamanuu wacamiluu صaalixaat ilaahay wuxuu suuradda ku tilmaamaya kuwii mu'miniinta gubay ee imtixaamay hadday toobad keenaan xataa weli in ilaahay toobadda ka aqbalayo waxaa kaloo alla tilmaamay kuwa iimaanka ee camalka saalixa sameeyey inay jannooyin iyo nicmooyin leeyihin dabeetana ilahi wuxuu uhi dalika alfawz اlkabiir guusha weynina waa taas baa ilahay yidhi waxaan yaraynu ku xeeqnay adduunka ma ka xoog badannay gaalka ma lagadnay mayna lagday intani maaha guul baa la leeyahy dalika alfawz اlkabiir bale qur-aanka waa ka ilaahay ku tilmaamaya fii suurati saf maxaa ilaahay ka warramayay dalika alfawz اlcadiim waأkhraa tuxibuunaha nasru min allahi wafatxun qariib baa layidhi inta jannadii iyo nicmadii iyo wixii lasoo tilmaamaa la yidhi kaasba liibaanta weyn waxaa kaloo idin siinayaa baa ilahay yidhi waأkhraa tuxibuuna tu kaloo yaroo aad jeceshiin fatxun min allahi wanasrun qariib wax weyn ba inaanay tani ahayn baa la tilmaamay idan qisadan waxa koowaad aynu ka fahmaynaa wax weeyaan qofka mu'minka ah noloshu wax kastoo ay tahayba in isaga laga rabo inuu ariiqa saxaa hayo ama ha lagu gubo ama dhimo adiga waxa aad ku taagantahay waa inuu noqdaa inaad iimaan ku dhimato inaad ku dadaasho waayo meesha loo socdee guusha dhabtii i jirto waa meesha balaayiin yeeriska lagu noolaan doono waa janniya naar saa daraaddeed baa ilaahay markuu tilmaamay kuwa fitnada iyo imtixaanka sameeyana in cadaab kulul ugu dambeeyo kuwa iimaanka laga helanaya inay jannooyin leeyihin dalika alfawz ayaa ilahay wuxu uhi ina batsha rabbika lashadiid inahu huwa yubdiu wayuciid wahuwa algafuur اlwaduud du lcarshi اlmajiid facaalu lima yuriid suuradda inteeda dambe ilaahay wuxuu leeyahay war ilaahay qabashadiisu waa mid adag
waxa kaloo ilaahay inoo tilmaamay inuu yahay facaalu lima yuriid wuxuu doono ku sameeya waxa kaloo ilaahay inoo tilmaamay waxa adduunka ka dhacaya inaanu mooganayn shaahid inuu yahay oo uu arkayo وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إلهي وحول وح كستور دعينا وانركيا مؤمن كلا جبيان أركيا دمر كلا لينا يان أركيا عرورت مرة رسان أركيا وحول وإن مغضب بإلهي لي على كل شيء شهيد نوانه فعال لما يريد نوانه بإلهي لي غافل لك ما هي عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار إذا قفك مؤمن قصدني وحي نبرس يا كو وحبايا لابتك حاجنن ولا يقول حق بتاع ما كان بعد عيام الساعة بعد عيام الدنيا وحن بكر دعي الدنيا رب يقول هذا معمولة يه هذا كن على الطريق هذا هو الشيء الأول الشيء الثاني وحين الدريم إن وقت كستبا marka dadku muddo joogaba in Ilaahay u soo saaro mid diinta u cusboonaysiiya oo dadka diinta dib ugu yeedha Ilaahay wuxuu u doortay gulaam inuu noqdo duulka kan cidda diinta u soo noolaynaysa taa macnaheedu waxa weeyaan inaynu ku xisaabtanno nolosha dhammaanteed gaar ahaan carruurta wiil yaraad rabbaysa laga yaabaa ummaddan in Ilaahay ku badbaadiyo waayo ummaddan dhan ee Ilaahay suuradda quraanka kaga warramayo waa gulaam waxa lagu badbaadiyay hal wiil carruurta yaraynu quraanka u dhigaynay faatixada u dhigay sidee waxoogaa nusuus quraana axaadiista u sharxaysay intan kuwan mid ka mid ah la arkaa in Ilaahay gacantooda ku badbaadiyo adigu waxba kama ogid idan waxa ay tilmaamaysaa meesha aynu wax ka raadinayno meel aan ahayn baa Ilaahay wax ka gadiya adigu waxa tiladay madaxweynaha hadii la keeno malaaba wax waliba hagaagi lahayn ama halkan hadii laga boodo laakiin إلهي سبحانه وتعالى مركو وحبدل يا هل ويلو يربو وحكو بدل كنا waxay qisadan inoo tilmaamaysaa ummadda dhan ee guulaysatay iimaanka heshay diin ku noolaatay gulaam inuu ahaa cidda badbaadisay ثالث الأمر waxay inoo tilmaamaysaa qisada tani dadka ahlu sharka ahi inay jecel yihiin sharku inuu waaro xataa isagu oo quran intuu dhinto sharkiisa inuu la dhintee kuwa ka dambeeyana inay sharkaasi wadaan walidalik baa saaxirka kani boqorkii intuu tagay muxuu ka codsanayaa boqorka sixirka iyo waxaan inaanu dadka ka lumin deetana wuxuu leeyahay wiil yaroo caqli badan oo kana keen si sixirku u sii waaro taa macnaheedu waxa weeyaan war haddii dadka ahlu sharkiiba ay u xidhxidhan yihiin sharku siduu u waari lahaa adigu haddaad khayr rumaysantahay waa inaad u xidhxidhnaataa adna khayrkan sidii aad u waarin lahayd uu kaaga hadhi lahaa raabic اlamr waxaynu aragnay qisada tan wiil yar oo ilaahay karaamaad tiro badan la ka muujiyey waxaynu aragnay wiil yar oo dhagaxintuu tuuro bahal magaalo u taag weyday ilaahay dhagaxiisa ku dilay waxaynu aragnay wiil yar oo ilaahay intuu u baryo kuwa indhaliyay indhuhu u baxaya waxaynu aragnay wiil yar oo kuwa baras qaba intuu ilaahay u baryo ay barasku ka kacayso waxaynu aragnay wiil yar oo dadkoo dhamma intuu boqor dhan iyo dawlad dham isugu tagtay inay disho ilaahay baryayo le ilaahu iga fayd kuwa dhibaatadooda ilaahay ka faydayo taa macnaheedu waxa weeyaan ilaahay subxaanahu watacaala ciddii qalbi suuban ula timaado daahira karaama hadday ka dhacdo ma kibro wiilkani ma odhan dad yahow aakhire anigunbaa shafeeco qaaday aniga igu soo urura wa ilaa ninkan ka xarima jannada qof dambe janno urinaya ma jiro sida bacdu ahlu turuq ay sheeganayaan iyagoo waxbaba ka dhicin kan ilaahay baa ka warramaya waxa karaamo ka dhacday waxa alla ka warramaya subxaanahu wa tacaala ama axaadiista nebigu calayhi salaatu wasalaam waxay inoo sheegaysaa wiilkan in waxa karaamo ka dhacay idan karaamaadku waa ta'yiid ilaahay uu ku ayiday dadkiisa saalixiinta ah mana sheegayso qofka karaama ka dhacday inuu ka weyn yahay qofkan karaama ka dhicin bale waxay culimadu yidhaahdaan waktiga dacful iimaanku tiro batay karaamaduna tiro badataa xataa waktiga iimaanku qawigayay waxay culimada qaar yidhaahdaan taabiciintii dambe iyo kuwii kasii dambeeyey baa karaamaadka la wariyaa ka tiro badan yihiin waktigii saxaabada kuwa la wariyo
waxay yidhahdaan saxaabadu in badanoo ka midii waxay gaadheen xad iimaankooda uu dhammaystirmay ama meel xooggan uu gaadhay yacni yaqiin bay haysteen karaama hadday dhacdiyo haddaanay dhicin ba aanay tasacsucayn laakiin dadka marka dacfigu ku dhaca ilaahay subxaana wa tacaala karaamaadka uu muujiyaa si maxay iimaankooda uu xoogo magaalo dhan oo gaalo ah ayaa wiilkan yar ilaahay karaamaadkan ka muujiyey si uu diinta ugu soo hago oo ay u islaamaan khamis alamr wiilka kan iyo qisadiisu iyo dadka mu'miniinta ka dambeeyey iyo ninkii boqorka la fadhiisanayey iyo wadaadkii raahibka ahaa iyo dadkii mu'miniinta godka lagu gurayey iyo ilmihii yaraayo hooyadii lahaa sabir hooye xaq baad ku taagantahay dhammaanteed waxa ay tilmaamayaan iimaanka dhabta ahi geerida inuu iimaanka ka doorbido yacni qofka mu'minkaa agtiisa waxa ugu qaalisanay inuu yahay maxay iimaankiisa iyo caqiidadiisa inaanu waxba siisanin xataa haddii la yidhaha waa lagu dilayaa oo markaa boqorka ninkii la joogay waa la dilay iimaankiisa inuu ka noqdo wuu diiday raahibkii waa la dilay iimaankiisa inuu ka noqdo waa diiday wiilkii yaraa waa la dilay iimaankiisa inuu ka noqdo waa diiday magaaladii dhammayd ee hadda rumaysay geeri iyobaa la kala doonay geeri caadiya weliba maaha waa geeri layshiilayo daawaha dab laysku gurayo geeridaa kale xanuun kulul dee xabad lagugu dhufto waxa laga yaabaa inaad markiiba dhibato laakiin haddii moofada lagu saaro oo kolba cadku juquuq yidhaahdo way ka gedisan tahay geerida caynkaasiyabay ka doorteen iimaankooda idan waxaa meesha kaloo taalla qofka mu'minkii inuu diyaar u ahaado inuu naftiisa u tadxiyeeyo u dhinto fii sabiili iimaanihi qisada kani waxaa kaloo tilmaamaysaa gaalnimadu dadka qaar markay xad ka gaadho inay bini aadamtinimadu ka lunto oo inay ku raaxaystaan noole la gubayo bini aadamkii la nooc ahaaya oo boqorkan iyo kooxdii la socotay waa kuwan bini aadamka shiilaya qisadani waxay kaloo ina tilmaamaysaa qofka mu'minka ay xilliga dhibtu qabsato hadduu rabbi si dhaba u baryo in ilaahay inta badan ka faydo inankan yar markay ku soo ururtaba ilaahay buu baryey inta askartu qabato oo caynkan oo la yidhahdo buurtaa lagaa tuuraya rabbi buu baryo wuxuu leey ilaahu kuwan sharkooda ay dhaafi dabeetana ilaahay baa dhaafiyey badday geeyeenoo isagaan waxba kala haysan wax xoogoo gacantiisa ku jirin laakiin laa taxzan ila allaha macanaa dii buu rumaysnaa ilaahu kuwan sharkooda adigu igaga fillow buu yidhi ilaahay baa kaga filaaday waxay kaloo tilmaamaysaa qisada tani adduunku in laysku keena itixaamayo ilaahay wuxuu yidhi walow shaaa allahu lantasara minhum walow yashaau allahu lantasara minhum ilaahay hadduu doonayo gaalka waa ka xoog badin laha waa ka guulaysan lahaa soo caynkaa maaha ilahay hadduu doonayo dunida tan kun fayakuun buu odhan lahaa waar idinka dhulku haydan la go-a buu odhan laha waa la go'i lahaa laakiin ilaahay baa wuxuu ina leeyahy walow yashaau allahu lantasara minhum ilaahay hadduu doonayo iyaguu ka guulaysan lahaa ee maxaa ilaahay doonay walaakin liyabluwa bacdakum bibacdin wajacalnaa bacdakum libacdin fitna atasbiruun waan baan isku kiin imtixaamayaa baa ilaahay leeyay anigoo eegaya bal inaad sabirtaan iyo in kale taa macnaheed waxa weeyaan qofka mu'minka inuu sabirka diyaar u noqdo duruufta iyo dhibta iyo mushkiladdu waxay doonayso ha noqotee qofka mu'minkii inuu ku dadaalo inuu sabro waxaa kaloo qisadana tilmaamaysaa ilaahay subxaana wa tacaala gaalka kibre markuu xad kibirkoodu gaadho in ilaahay mashaakil ku itixaamo muujiya liidashadooda ninkan dadka laynaya wax kasta samaynayey ilaahay wuxuu ku itixaamay isaga iyo dowladdiisii iyo askartiisii iyo wixiisii oo dhammi wiil yar inay dilaan wiil yar bay u taag waayeen inay dilaan waa boqortooyo dhan iyo dowladdan iyo askarteedii iyo waxeedii oo rabta hal wiil inay disho laakiin awoodi kari weyday waa caya ilaahay subxaana wa tacaala oo fashilinaya hal wiil ayay isugu tagtay dabeetana halkii wiil bay dili kari waayeen ilaa iyo wiilka yari uu ku dhintay markii isaga awaabirtiisa la yeelay sidaa yeelow sidaa yeelow sidaa yeelow sidaa yeelo markaasuma dhiman karaya waxaa kaloo qisadani inoo tilmaamaysaa rajul اlcaqiida mararka qaarkood in dacfi ku dhici karo oo waxay ahayd in la qariyo uu qarin waayi karo marka dabka la saaree la cadaabo inuu wax iska sheegi karo waayo dadkan iyagoo iimaan u dhintaa haddana qisadu waxay inoo sheegaysaa
markii la soo qabtay ninkii boqorkee la cadaabay wuxuu sheegay maxay wiilka markii la cadaabay isna muxuu sheegay raahibkii buu sheegay yacni qofku markuu toorjarka iyo dhibta galo mararka qaarkood xiina dacf waa dhici kartaa inuu siro badan iyo wax badan sheego laakiin haddana waxaa laynoo tilmaamaya kuwii sirtaa sheegay markay arrintu gaadhay gaalnimo iyo islaam gaalow ama waa ku dilaya inay doorteen dilka inay ka doorteen ayuu sheegaya waxaa kaloo uu sheegaysaa qisada tani koow macallinku ardaygiisa inuu tashjiiciyo oo haddii wax wanaagsan ay ka muuqdaan inuu ku ammaano macallinku inuu ardaygiisa u tababaro inuu wax dheeraan doono macallinku inuu ardaygiisa ugu talagalo inuu noqdo qof bulshada intuu isagu hayay horumar ka sameeya laakiin macallinku inaanu ardayga kaga talagelin inuu isaga nuskha minhu noqdo copy dadku hadda waxay jecel yihiin inta badan nin waliba kursigiisa inaan loogu iman karaan ku fadhiyo inaydan daydu ku soo fadhiisanin aniguna aan ka warrabo laakiin haddaan macallin dhaba ahay waa inaan jeclaadaa mid iga fiican inuu halkan soo fadhiisto inaan u tirayngareeyo dadku inay noqon karaan wax aniga i dhaama waayo dadkan ilaahay baa subxaana wa tacaala awoodo siiyey tiro badan leh inta igu aasan in ka badan baa dad badan oo halka fadhida ku aasan laakiin waxay u baahan yihiin tafjiir in bamku si uu qarxo dee dab yaruma la sudhaa isagaa markaa arla dhan gubaya dad badan baa waxay u baahan yihiin in ignitionka in loo shido uun dan waxaagii wax ka fiican buu keenaya saa daraaddeed wuxuu sheekhii ardaygan yar tababaraya ku dadaalaya inuu yidhaahdo anta afdalu mini اlآan waa mas'alati tawaaduc inaad xaasid ka noqonin wadaad haddaad aragto wadaadku hadduu arko wadaad kaloo ka yar muxaadarooyin fiican inuu yaro garbeeyo siraa warkani dadkaabu kaa qabsan doonaaye meeshayuu kugu cidhiidhi siyaasigu arko nin ka yaro firfircoon warkani meeshuu malcaamadda qur-aanka ka dhigaya siraa mid kaa yaro tajwiid badan baa yime yuu xerta kaa kaxaysana ama ardada kaa kaxaysana qofba hadduu qof meesha ka saaro waxba laakiin asalku dadka aakhiriya janno doonaya waa inay tawaaducaan waayo mid iga muxaadaro fiican inaan soo saarabaa iiga ajar badan le tayda waayo kan haddaan soo saaro wuxuu isagu shaqaystana ilaahay subxaana wa tacaala wax ka mid waana ii qoraya raahibku juhdigii uu bixiyaa wiilkani ku dhashay wiilkani cidlo kama soo amaamudmin waxyi kuma soo degin isagoo meel cidlaa fadhiyo ilaahay subxaana wa tacaala waxyi kuma manaysanin laakiin ilaahay wuxuu sabab uga dhigay inuu raahibkani soo saaro idan raahibka kani isagaa masder u ah xasanada tanba xasanadaad adigu masderka u ahayd inaad colaadiso maaha waa adigiiyo adigiis colaadinaya marka kan waayo xasanadan isagaa bilaabo biqiliyey isagaa soo saaray inuu wiilkani wiil ka noqdo walidaalika inuu colaadiye maahe waa inuu yidhahdaa anta afdalu mini اlyowm maanta adaa iga fiican oo iga roone hore u soco waa inuu yidhahdaa waxaa kaloo xadiidkani uu inoo tilmaamaya dadka badh baa waxay moodayaan jaanibka milatarigaa ama jaanibka siyaasiga ama kuwaas inuu yahay waxa ummad abuuri karaa haddaan xukuumad la samayn haddaan dawlad la samayn haddaan jihaad la samayn wax kalaba dhalanaynin can ariiqi اlquwa un inuu xaqu ku muuqdo maya waa ka mid jihaadku waa ka mid xukuumo islaamiya laakiin waxaa kaloo ka mida buu xadiidkan inoo tilmaamaya sanaa'ic اlmacruuf dadkoo wanaag loo sameeyaa inay tahay waddo loo maro bulshada badbaadadeedii yacni ka gaajoonayoo wax la siiyo ka qaawanoo maro la huwiyo ka buko oo dhakhtar loo dhiso dadkoo la gargaaro waayo wiilkan ilaahay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo tilmaamay inuu bulshada ku hantay koodii xanuunsanaya oo ilaahay u bariyey kiindhaa beelaya oo ilaahay u bariyey yacni wanaaggu bulshada u sameeyey buu ku hantay mujtamaca kani inay aaminaan oo ilaahay rumeeyaan subxaana wa tacaala walidalik sanaa'ic ilmacruuf waa ariiq ka mida uruqa loo maro yacni bulshada inta badan waxaa ku dhacda nin waliba waddadu hayo mooyaane waddooyinka kale o dhan baatil buu u yaqaana haddii ka khayrka faafinaya uu yidhaahdo waddadayda mooyaane mid kaleba ma jirto tanaan anugu hayuun haddaa martaan baa liibaanaysaan haddii kale liibaani maysaan ka jihaadiya uu yidhaahdo taan anugu hayuun haddaa martaan unbaa liibaanaysaan wixiina kale liibaani maysaan ka siyaasiga yidhaahdo anugu taan wado unbaa lagu liibaanaa tu kale lagu liibaana waxba kama jiraan waxaa wax ka jiraan waar khayrka duruqdiisu waa badantay sunnada nebi maxamedna waa ballaarantay calayhi salaatu wasalaam xadiidkani markaa wuxuu inoo caddaynayaa sanaa'ic ilmacruuf dadka loo sameeyo inay tahay wasiilo lagu hanto
xadiidkani waxyaabaha kale aynu ka faa'iidayna waxaa ka mid ah taariikhda bashariyadu inay weligeedba soo lahayd duul kibro oo qooqo oo dadka guba ee inaanay maanta bilaabmin taariikhda basharigu siraaca kani inuu mid qadiimayo hore uga soo jiray oo mar kastaba nin kibray iyo mid qooqay qur-aanku uu ka warramay iyo axaadiista nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo aynu qisada tan ka fahmaynaa qofka bini aadamka ahi haddii xorriyad uu helo oo khayrka iyo sharka labadaba mid mutakhasisi uu sharxo qofkana xorriyad la siiyo dana kale oo ama dhaqaale ama waxaas inaanay meesha ku jirin inuu qofku mayaal u yahay inuu u weecanayo xagga khayrka inankan yar waxaa helay laba nin oo nin waliba fannigiisa khabiir ku yahay inankan yar waxaa helay nin saaxiro cilmiga sixirka looga dambeeyo boqortooyada meesha joogtaaba waxaa kaloo helay nin mu'min oo ahlu tawxiidah oo sawmacadiisa jooga labada ninba bixorriyatihim nin waliba wixii uu rabay ku akhriyay laakiin waxaa muuqata khayrku inuu haalib ka yahay sharka haddii si siman loogu akhriyo laakiin dee haddaad khayrkana ka dhigto 2 daqiiqo sharkuna uu mutakhasis yahay waa masalo kale ama haddii bini aadamka si siman wax loogu soo bandhigi lahaa xorriyaddu yacni waxa aan tilmaamaya waxa weeyaan xorriyadda dhabta ahi muslimka ma cabsi geliso xorriyadda dhabta ahi aan been laga sheegaynoo midna mikrofoonada iyo jaamacada iyo meel walba la siinaynin midna cunaa lagu dhegaynin maaha xorriyadda dhabta ahi muslimka ma cabsi geliso sida awgeed baa ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya walaqad khalaqna alinsaana fii axsani taqwiim adigu ha shakiinoo hays odhanin sharkii baa soo afuufay anigu maxaan garanayaa waar khayrka haddaad ku afuuftay isaga ka xoog badan ilaahay qur-aan badan buu wuxuu ku tilmaamaya baatilka oo caynka ahaa in xaqa lagu dhufto fayadmaqu faidaa huwa zaahiq qisada tani markaa waxay noo tilmaamaysaa inan yaroo si siman loogu akhriyey oo khayrka raacay waxaa kaloo qisada tani inoo tilmaamaysaa guusha dhabta ah inaanay ahayn un guusha waa ka mid in gaalka ilaahay kaa jebiyo aad gacantaada kaga guulaysato laakiin guulaha dhabta ah waxaa ka mid a qofku inuu naftiisa iyo shaydaan ka guulaystaa ka mid ah guusha ugu weyni marka koowaad waa taa nafta adiga kugu jirta ina nafsa la amaaratun bisuu iyo shaydaan inaad ka guulaysato taa macnaheedu waa maxay maladaat alxayaa aakhiriya adduun inaanay kuu sinmin inaad guulaysato ah aakhira inay agtaada kaga weyn tahay adduunka oo dhan aakhira inay agtaada kaga weyn tahay maxay adduun oo dhan kooxda tani boqorka iyo wuxuu haystay iyo nolosha adduunka waxay ka door bideen ghulaamkii iyo raahibkii iyo ninkii boqorka la fadhiyey iyo bulshadii weyneyd ee iimaanka laga helayba inay dhintaan oo iimaanku u badbaadaabay ka door bideen idan intasaruu calaa anfusihim bay yidhaahdaan waa intisaaru ruuxi cala almaadda waa nooc min alintisaar bay waa guul guulaha ka mid ah laakiin dadka inta badan guusha maadiga unay u muuqata waa guul weyn inaad naftaada iyo shaydaan ka xorowdo inaad ilaahay dhankiisa u banbaxdid inaad iimaan ku dhimatid waa guul idan waxaa layna baraya qisada tani waxyaaba ayna baraysa ka mid ah guushu inaanay ahayn inaad ciidan jebisay guushu inay ka mid tahay inaad naftaada iyo shaydaan ka xorowday oo hadday janno hesho naarna ka badbaado qisada tani waxayna baraysaa qofka mu'minka dhabta ahi inta uu dadka hanuunkooda iyo iimaankooda iyo hidaayadooda ilaalinaya inay ka badan tahay inta uu naftiisa nabadgelyadeeda qura ilaalinayo wiilka yari waxaa dhacday in buur la saaray oo ilaahay baryo askartii madhatay waa fursa dahabiya lilfiraar ba waa jaanis buu haystay inuu baxsado laakiin muu baxsane wuu soo noqday oo meeshii buu yimi boqorkii buu ku yimi mar labaad baa bedel la geeyo ilaahay askartii buu mariyey wuu soo noqdo haddana meeshii buu yimi mar saddexaad ayuu boqorkii haddana wuxuu ku yidhi sidaan u dhiman lahaayoo qurankuu sheegaya oo ah dadka oo dhan jamci oo sidaa iyo sidaa yeel wiilka kani waxa uu rabay waxay ahayd inuu xaqa muujiyo walow isagu ha dhintee
waxa uu rabay inuu dadka diinta gaadhsiiyo walow isagu nafta ha waaye. daaciga dhabtahay markaa waa ka iimaankiisa iyo diintiisa iyo horumarkeeda ka doorbida naftiisa salaamadeeda, inay naftiisu badbaaddo. wuxuu ka doorbidayaa inay diintiisu badbaaddo, inay dadku hanuunaan buu ka doorbidaya. walidaalik dadka kani boqorkan weyn waxay u hoos fadhiyeen waan idin layn buu lahaa. saxanka maaha. dadku waxay ka baqayaan ana rab, miyaan anigu rabbigiin ahayn buu lahaa. ninkii indhuhu u baxeen wuxuu ku yidhi awalaka rabbun hayri, ma rabbi aan aniga ahayn? laakiin dadka wuxuu rabay inuu tusiyo inaanu ninkani rabbi ahayn. wuxuu kaloo rabay saaxo ummadiba taagan tahay inuu caddeeyo boqorku inaanu rabbi ahayne ghulaamka rabbigiisu inuu yahay rabbiga xaqa ah. boqorkuna uu tanaasulo u aqbalay si boqortooyadiisa ugu hadho inuu yidhaahdo bismi illaahi rabbi lghulaam, waxaan cuskaday magaca ilaahay rabbiga ghulaamka. idan qisada tani waxay muujinaysaa daaciga xaqiiqigii inuu yahay ka agtiisa naftiisu rakhiis ku tahay marka loo eego mabaadi'da iyo wuxuu xambaarsan yahay, oo ogol inuu isagu dhinto si mabda'iisu uu horumari karo. waxay kaloo qisadani tilmaamaysaa haddii bulshadu si dhaba iimaanku uu gaadho oo si dhaba loo qanciyo inay ka xoog badan tahay xoogga. yacni dadka badh baa waxaa u haystaan xagga muruqa in dadka lagu islaamin lahayo haddaad ka xoog badato inay dadku islaamin lahay waa kuu munaafiqaynayaan, waxba islaami maayaan. waxa dhabtee dadka qalbigooda gala waa iimaan iyo qanaaca. qoladan bolisiga ka warranta siyaasadda waxay idhaahdaan dowladdu laba baawar bay adeegsataa bay idhahdaan, hard power iyo soft power. alquwa salba iyo quwa naacima bay idhahdaan. quwa salbadu waa qaanuunka, waa askarta, waa booliiska, waa sharciga, waxaan dee dawladdu haysatoo dhami waa quwo adiga lagugu qasbayo, ma bixi kartid. qaanuun baa ku qabanaya, qaadaa ku xukumaya, jeel baa waa quwa salba. waxaase ka xoog badan bay yidhahdaanoo dawladu adeegsadaan alquwa naacima waxay yidhahdaan, quwada fudud. iclaamka, laaluushka, lacagta, soo dhowaynta, maamuuska, waxusheega, ka dhaadhicinta, gogolbadinta, kaadibadane waa loo gogo ilaa iyo lagugu soo rito shabakada la rabo. idan quwa naacimabaa ka fiican inaad adeegsato quwa salba in badan. sida daraaddeed baa ambiyadoo dhammi waxa ku horraysay quwa naacima inay adeegsadaan, oo ah tawxiidka inay dadka u muujiyaan, inay u caddeeyaan walow haba lalaaye. qur-aanka imisa ku qoran nebi la dilay, wakaayin min nabiyin qutila macahu, ama fariiqan taqtuluun fariiqan. ilahay qur-aanka muxuu tilmaamay reer bisrael nebiyada badha waa laysay badh waa yani intaasoo nabaa dhintay. geeridu wax weyn maaha. daacaa la dilay cid baa wax weyn maaha. wax weyn waxa weeyaan mabda'ii rabbi aad rumaysnayd inuu faafi karo. sida daraaddeed inuu qofku isku dayo. bulshadu hadduu iimaanku galo dawladuhu ma qasbi karaan. boqorku wuxuu is lahaa sharkaas isagu siduu u arkayay de intaanu soo faafin guntan ka jar. marka wadaadka dil, raahibka dil, kii isaga ag fadhiyey dil, wiilka yar dil, beleda dambe bas. wiilkuna wuxuu rabay inaanay arrintu afartoodan iyo saddexdoodan ku koobnaanine ummadda in warku gaadho walow iyagoo haba dhintaane. ummadda si uu warku u gaadho xataa geeridoodana ha noqotay wuxuu yidhi dadka oo dhan soo jamci, dabeetana sidaa iyo sidaa iyo sidaa yeel. dadkii markii la soo jamciyey ay fikraddii gaadhay, iyagoo dabka arkayay fikraddii qaateen. iyagoo dabka arkaya iyo dabka in la geli karo. idan bawarka nin dawlada ama madax ama xukuumad ama waxaan haystaan power maaha haddii bulshada la gaadhsiin karo caqaa'idda iyo mabaadi'da iyo waxaad rumaysan tahay. waxaa qisada kane oo tilmaamaysa geerida inaan laga cabsanin buu wiilkan yari anmuudaj u ahaa, tusaale. fikradduu rabay buu isagu u dhintay. haddaad fikraddaada aaminsan tahay ay keensato inaad u dhimato, markaasay dadku si dhaba u rumaynayaan. haddaad se adigu intaad dib isu dhigto dadka tidhahda idinku ma dhinta idinku anigu waan qadiyo kala soo qabanayaae, waa adagta in dadku u dhinto. laakiin hadday kaa muuqato inaad adigu tahay
anmuudajka tusaale good example haddaad adigu noqoto dadku fikradda waa aaminayaan wiilkani wuxuu aqbalay amaama annaas bulshadoo dhan oo taagan inuu isagu noqdo tusaale lagu dayan karo anaa tayda soo qoolay buu yidhi aniga ha lay dilo laakiin xaqaasaan wadaayo xaqa ha loo dhinto waxaan ku soo gebagabaynayaa ilaahi subxaana wa tacaala nebi maxamed wuxuu ku yidhi waimaa nuriyannaka bacda aladii naciduhum aw natawafayannaka failayna marjicuhum uma allahu shahiidun calaa maa yafcaluun haddaanu adiga ku tusinna baa ilahay yidhi waxaanu gaalada u yaboohnay waxa ka mid ah oo ah in iyaga la laayo adigu aad guulaysato ama inta aanad guulaysaninba adigu aad dhimatid baa ilahay yidhi adigaanu ku dillo failayna marjicuhum baa ilahay yidhi gaalo nagama baxsane annagu may noo soo noqonayaan haddaad adigu kaba hor dhimato iyadoo aanad guulba arag ilahay wuxuu yidhi failayna marjicuhum anay ii soo noqonayaan uma allahu shahiidun calaa maa yafcaluun waxay samaynayaanna ilaahay waa ka markhaati taa macnaheed waxa weeyaan qofka mu'minkii waxaa habboon mabaadi'da inuu si dhaba u aamino waxaa habboon mabaadi'da inuu soo bandhigo waxaa habboon qisaska qur'aanku uu warinayo litasliya inaynu ku madadaalano qura looma arooriye ilaahay wuxuu leeyahay laqad kaana fii qasasihim cibratun liuli lalbaab wallahu aclam